inaan la hadlo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo haddii aan laba leeyahay oo aan leeyahay madaxweyne waxaa tahay qofka maanta somalilan ugu mudan ugu sharafta badan madaxweynihii qaranka somalilan waxaa tahay 80 jir maanta aan cimri u harsanayn waxaa tahay lama qariyo qofku wuxuu leeyahay waxaa tahay nin dalkan u soo halgamay oo tacab badani kaga jiro oo aan kaftan ahayn tacab dhabi kaga jiro baa tahay baan leeyahay waxaan leeyahay madaxweyne maanta waxaa tahay aabe 80 jira waxaad leedahay ubad baad leedahay awoow waa tahay oo ubadkaaga ubadkiisii ayaa jooga dalka kan tacab dheer iyo halgan dheer baad u soo martay somalilan oo dhan aab baad u tahay geed kamaad soo dhicine waxaad tahay madaxweyne reer baad ka dhalatay oo haddii aan laba leeyahay reer magac weyn leh oo taariikh leh baad ka dhalatay dhib iyo dheef iyo godob iyo qodax wax alla wixii aad keento maanta oo taariikhdaada xumaynaya waxay ku yeelan doontaa raad ehelkaagay ku yeelanaysaa oo reerkaad ka dhalatay oo somalilan aabe u wada tahay bay ku yeelanaysaa mas-uuliyad culus baa ku saarana waxaan ku leeyahay maanta madaxweyne adiga si toosa ayaan kuula hadlayaa waxaan ku leeyahay ha u rixinin durbaanada dadka aad wadiifadda u dhiibatay ee ambasator ka hadlaya ee shaqaalaha kuwa ama nacfijiidka iyo taageerada ay ku muujinayaan iyo dadka kule haddii aan laba leeyahay wax iska riix waxaad u baahan tahay maanta inaad dhegahaaga u furato waayeelka somalilan ku dhaqmi jirtay ee dhexdhexaadka iyo salaadiinta dhexda ka xidhan iyo guurtida iyo madax dhaqameedka iyo inta samaha maanta inaad dhegahaaga u furaadaan oo aad dhegaysato oo aad u dhibriso oo dalka u tudho ayaan horta marka hore madaxweynaha kaala hadlaya waxaan leeyahay oo kale ku leeyahay si khaasa haddaan kaala hadlo waxa weeyaan xeegaan baynu lahayn cidda aad maanta is haysaan labada xisbi ama labada oday ee hogaaminaya xisbiyada iyo cidda ay ka soo jeedaan 30 sane u dambeeyey siyaasadda waxay tirsanayeen inaynu u shuraakaynay oo cadaadinay meel dambaynu u riixnaa uma bannaana waxaan leeyahay haddii shalay suldaan maxamed xirsiqani markii caarab baxay ee reerku diyaamay uu yidhi maanta codka madaxweynuhu ee dulqaadka madaxweynaha iyo talada madaxweynuhu haddayna kala dhaqaajin weyday innagu aynu somalilan badbaadinno waxaan ku leeyahay madaxweyne maanta adigu somalilan kala dhaqaaji cimri kuuma hadhin oday baad tahay dalka tacab badan baad gelisay 5 sano aad joogtay ma xaqirayno wax badan baad qabatay waxaan leeyahay maanta waxaa la ii sheegayaa inaad ilaa berri ceergaabo u baxayso inaad mashaariicul culus oo kuwii maydhaad ka hirgelisee badda furayso inaad furayso madaarkii ceergaabo inaad furayso waddadii dheeraydood dhammaystirso guula inaad dhammaystirayso cusbitaallo inaad dhisayso madaxtooyo intaasoo mashaariic oo ceergaabo aad ka furayso u baxayso ha tegin iyadoo xisbiyadii iyo madaxdii qarankoo dhan xidhxidhan yihiin oo maanta jeelka ay ku jiraan oo ergada waxaa la ii sheegayaa inaadan weli ergadii idinku dhex jirtay xisbiyadii inay aqbaleen oo fadhiisteen oo ay mudaharaadkii joojiyeen miidhiyahan kala socda madaxweyne wax la leeyahay weli madaxweyne qaranku lama kulmin waxaan leeyahay ha u rixinin durbaanada meelaha kale ka tudmaya odaynimadaada ku shaqee dadka dhexdhexaadkaa arag guul la tag iyo horumarin baad bari ka soo furaysaaye si wanaagsan lagugu soo dhoweeyo adoo xaajada dejiyey oo maanta odayaasha iyo arrinka u dhiibay oo dejiyey waa inaad maanta meesha aad ka dhooftaa oo ceerigaabo u baxdaa baan leeyahay anugu intaasi waa walaaltinimo waa tulnimo
waxa weeyaan waa saaxiibtinimo hore waxaan leeyahay qolada xisbiyada waxaan leeyahay waad ogtihiin inta jeere hore la kordhiyey iyadoo ay tahay oo aan ogahay aan xogaal ka ahay raggii siyaasiyiintii hore ee silaayo waad ogtahay inta jeer uu dul qaatay isaga iyo xisbigiisu ee ay kordhinta aqbaleen hase ahaatee waxaan qirayaa waxa wax lagu kordhin jiray commissionka ayaa soo jeedin jiray iyagaa guurtida u keeni jiray iyagaa odhan jiray wax loo kordhiya maanta way ii muuqataa inaanay oolintii oo commissionkii la kala diray oo aanay suuragal ahayn in madaxweynuhu isaguna kororsado xisbiyadana kala diro maadaama aanay arbitare iyo cid ku dhex jirta iyo commission iyo waxba jirin xaaladdu way cakiran tahay halkaa haddaan kaa dhex boqor haddaan kaa dhex galo madaxweynuhu ma odhan da waan kororsanayaa xisbiyadana waan kala dirayaa laakiin bisha 6aad baa ururadu furan yihiin xilliga doorashada la gaadhaana waa November 13 sidaasay ahayda ma odhan madaxweynuhu qolada waan kala dirayaa anoo korsanay anigu waxaan leeyahay way muuqataa xaajadu madaxweynaha 5 sano ka dhamaato doorasha laga rabaa anigu waxaan qabaa raggani waa raggu hore ula tartamay wax badanna wuu qabtay anigu kama dayrinayo wuu tartami karaa madaxweynaha waxa laga rabaa inuu doorashadii qabto waayo tii kororsiimadii wadadeedii way xidhantay komishinkaa la kala diray baa xidhay komishinkaa soo jeedinta keeni